مدحدة كلا دوين ماشي فقدة قضاياش الدولة اللي بأننا وزير ده سراكيش عيدنا ده مدحدة بغنك علماء ودينك رقعي هوانك بعض الصحافة يا فنانينتا بربارتك عشامان وعلى اللي كما عليها كسوق قبلك حفلتها وحينايتها شرف يا فرحات انت اصبرك يا كبدو انت اصبرك يا كبدو وحنسليه ومناسب ما انت وكل حفلة علينا سوينا معايا لو حنصوب مرني تاريخ أو لاجنه وكبكوا أي بكرة دوانا وحنقول ربنا مراحش أتكاد عن صوب مرني هي ماشي سوق هنا الدبيس سببتك إن المركلة إذا كسر الله أبتنا وحأقويناي dad badan oo Soomaaliyeed oo mar walba iga dalbaayeen oo istaaga xilka waxa kale oo kamid ah inaan aaminsanahay inaan ahay musharax ku habboon marxaladda maanta la joogo sababtuna wax kale maaha وخبرتي عن كذا حالنا لشقينتينا هي لشقينت أمد الصومالية يراها مثلنا خبرات كفلا روح على جرب إنه قام يقرن كان محلة عند الجوجان الليلة لقى صوب إلى بلوكن يا أفرتي إلى لبكن يا لوي تبنكي وعن كل جري مجالك سياسي لبكن يا لوي تبنكي إلى أي حد وعن كل جري إن عندك ما وحي عن سامري محان خلدي محان صحي محان يقدم بيه سيدا سوق لنا كفاية استوقت جيجا سيدا نقضو وقان عاوي كراومة ديسا حلك اللغة من المسؤول اللغة نكسلوك بذكر وعن رواينا هوستك حريبه قفك حلو ديبي يعني ولي حل مرة وساقوا هذا اللي يراه هسا شيكتين جبهة هاي الرئاسة الدولة اللي ما راح اللون ديبي إن الكفتفة وشيء طبيعي لكن مهمته وحوايا وحما قبتك بس وحما قبل فلله الحمد على من السنة هاي إن وحلا قبتك أمان يا مهد وحاني جيدنا يا dadkii ila soo shaqeeyay rag iyo haween dhalinyaro iyo waayeel waxaan ilaahay naxariis weydiinaa dadkii ruuxooda ku waayay shaqadaas qaran waxaan ilaahay uga baryayaa kab iyo mataqaana caafimaad kuwii lixdooda lixaad ku waayay waxaan amaan u soo jeedinayaa kuwii habeen iyo maalin u taagnay mas'uuliyadda leydii bay inay u caawiyaan aad iyo aad aad u mahadsantihiin sidaas oo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan uga mahad celiyo taageeradooda iyo kalsoonida ay siiyeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kuwa maanta ku faraxsan mushaarnimadeeda meel kasta ay joogaan intaas markaan ka gudbo waxaa laga yaabaa inaa isweydiisiin 4 sano waad iska maqneed hadda aad timid xilaa raadinaysa
وسؤال ماشي سوق لي كده لكن أسباب كانوا مغنى هيك قارنوا واشياء أظن كل وقت وحي هذا الجديد أنا فرصة سينا دولة وحل إلى أبوها إياه يضو أدونك وحي وجعلين عرورته qofka madaxdaana adduunku wuxuu u jecel yahay shaqadii oo soo qabtay inay si wanaagsan u socoto oo saxar ka ilaaliyo marka ilaalinayo shaqadaas ama maqnaa wax kale ma jiro maadaama la soo gaaray xilli doorasho aan kaftamaya dowladuna ay tiri doorashadu waa qabanaynaa shaki kuma jiro sidaasaa waqtigaan isugu soo aadiyey waxaa laga yaabaa su'aal kale inaad isweydiiseen oo ay istiraabin haddii shala fursad lagu siiyey oo madaxweyne soo laqatay maxaa u soo laabanaysaa maxaa cusub oo awoodaa ayadana waa su'aal meesha imaan karta laakiin waxaan isleeyahay mahmaa soomaaliyaad aad jirto la yidhaah ama hugubkado ama aqoonkado saas ma yahay intaas waxaa dheer dowladnimadu waa faham iyo khibrad iskuma xira aqoonta akaademiga ah iyo hogaaminta dowladnimo waa iskabaan laakiin mararka qaar waxaa laga yaabaa inaysan isku meel gelin waxaan isleeyahay marka waxaad fahamsan tahay dowladnimada sababtuna dowladnimada inaad fahamtid waa inaad fahamsan tahay shacabkaaga sida uu fikiraayo iyo baahida uu qabo waxaan wada ognahay qofka marxalad ku meel gaara hogaamiye ee ka samatabixiya marxaladaas in marxaladda labaad ay ka fududtahay marxaladda koobaad sidaas darteed markii hore uma dhigan inaad cid kale dooranaysiin laakiin haddana waxaan isiri fursadtii fursaddu waa idin siiya waqtigiina qaadataan mar kale waa fursaddaydii insha allahu tabaaraka wa tacaala ciddii khalad iga tabanaysa waxaan leeyahay raalli noqo khibraddaraa keentay marxaladda adagaa keentay ninkii xilkaada eedkaada la yidhi intaasoo dhan raalli ku noqo inay niyadayda wanaagsanada aan dadaala ay ku raalli noqo waxaan hadda kuu soo laabtay anaa wixii aan khalday aad uga fikiray aqaana dariiqa meeshaan uga halaabay wixii aan saxay aqaana ayaan kuu soo laabtay oo mar kale diyaar ah dhiib cusubna igu jiro intaas waxaa dheer dowladnimada soomaaliya maanta jirta soomaali kaliya uma taalo dad badan ay ka dhexaysaa dadkaas badan waxaa la rabaa qof khibraddeeda leh
حكمة هذا له إنه فرها هذا من كل بس وبحجار الله وحنا نسنا وقت كافونا هنا سلا سوكله وحال النمرك من نصف الكوية على بني عجلك مثل عجلك كوية على دبقة على كرة سومالي ذلك كاري وحنا نسنا عجل كوية على قفك لي لا يقوى بونانا هنا سلا سوكله فهم كالدولة الدولة وواحد مهمة إنا وقت ولا إنا فهمه محا عقبات وقت تاجم دولة الدولة الصومالية هذا لو حنا نسنا إنا مسوينا أكثر سوف عمل هذا سورة قلت هاي أمر سنة سوسة على دولة الدولة إنا أقدر بإذن الله تبارك وتعالى وما وانفض وحليلا عندنا كان حسوسيو دور شدي لو كن يسديت جبوت كان عضي وحنا بلغ قارئ الحلوان الشعب الصومالي دور شدي لو علينا كان عندنا مقالة الموجش ما علينا بس ما دعين الصوص هذا لو كن يتوافق كان وحادث وانا والموجود إن شاء الله تبارك وتعالى إذا أسبق أن قدمه وعن ربعنا أقول برنامج السياسي عن ربعنا كوكا في الدولة اللي هتلي توك إن شاء الله تبارك وتعالى. صوماليا ما أنت وحقوق وينوبة هنتاي وأمني وقت صوماليا هذول الأمن وحاسون غنايا نلشي وحاحو بيسنا يكرسوني وحاكرك على دقاله وحاكرك على فرشدي وحاجة وحول بومة الصومال اللي يبغى مركا قضب كامل وعنيبا ولي وحوية هاي بريورتي أما وحوية هاي وحرقوم وإنسان ودولة إذا كشف عندهم إن شاء الله تبارك وتعالى دي ليدور سيد الله بس هايو وإلا بس غير من قلب كسيدة فايبا هذا كلا دوان من الترقة بوليسكا كلا سدودة أسلوبته وأين أمر سماعية ما كفل أنها يمشارك هنا ليه أقوانت أوبا هنايا نوبا ديك الآن برشادة صوماليات يقالنا واجبات كودا وهو النفط وضع إيه وقت وضع الشعب كودا إيه الدين كودا إيه دولة لماذا إسلام مركزنا هلا حقوق الإلهيين سيدا مشاركة هو يمالكو قبضان عاقبات يوحي كلا يوبانا يقلب كيوبانا ينسيه شغيان مسؤول حين بابا شريف قل
sharafta iyo karaamada dadka Soomaaliyeed dowladnimada lama ilaali karo haddaan la dhisin ciidan awood u leh inuu ka adkaado cadowga ummadda Soomaaliyeed ee isku dhex jira ugu horreeya al-shabaab iyo al-qaacida. ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya waxaan aaminsannahay geesiyaal gutay waajibaadkoodii u baahan kaliya gacan lagu siiyo inay kor u qaadaan awoodooda iyo cilmigooda. dowladooda marka qorshaygu wuxuu yahay in la siiyo askariga iyo sarkaalkaba aqoon ku filan iyo qalabkii u baahnaay iyo mushaarkiisii iyo marka uu dhaawaco meeshii ugu daaweyn lahaa. intaas waxaa garab socota in laga dhaqmo ciidamada qalabka sida musuqmaasuqa lagu maamulo nidaam hufan oo ismaqal iyo kala dambayn leh. sidaas oo kale inay noqdaan ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ciidan dishibliin leh yaqaana waajibaadkooda kuna guda sida ugu habboon xurmeeya xuquuqul insaanka iyo shacabkooda Soomaaliyeed oo u adeegaya. waxaa garab socota oo qorshaha ku jira in la sameeyo dib u heshiisiin ka duwan dib u heshiisiinihii hore oo isku cafiyaan shacabka Soomaaliyeed ay dhista kalsoonida shacabka Soomaaliyeed dhexdooda ka jirta ee dhaawacantay si loo helo ummad isu qalbi furan ummad iswadaashanaysa mid ah si loo abuuro. taas ayaana waxay keeni doontaa insha Allah tabaaraka wa tacaala cadowga ku dhex jira inuu gabaad waayo maxaa yeelay ummad qaybsan ee caloosha wax isugu haysa guul ma gaari karto. qorshaha amniga waxa xoojinaya waxaa ka mid ah in kor loo qaado wacyiga bulshada ee ku aadan amniga si loo helo kalsooni iyo wada shaqayn dhex mara ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed. taasoo aan rajaynayno inay wiiqi doonto xoogaga cadowga ee ka soo horjeeda dowladnimada Soomaaliya. intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka labaad waa waxbarashada. waxaa kaliya oo maanta aan ku badbaadi karnaa waa inaan kor u qaadno aqoonteenna fursad la siiyo shacabka Soomaaliyeed inay helaan waxbarasho haqabka baahida ay u qabaan waxbarashada sida dhalinyarada gudoomiyaha dhalinyarada oo ka dhawaajiyey shacabka Soomaaliyeed. dhalinyaradu waa 70% in ka badan 70% kaas haddaan la helin waxbarasho ku habboon haddaan la siin dhibaatada iyo faqriga waxa u sii soconayaa sidiisii. taasuna waxay gacan siinaysaa xoogaga ka soo horjeeda dowladnimada waxay fursad u helayaan cadowgu inay tababartaan dadka aan dhaqaalaha haysan ee dhibaataysan. sidaas darteed ayaa qorshaha dowladdeedu haddii aan ku guulaysto murashaxnimada wuxuu yahay in kor loo qaado waxbarashada la tayeeyo la sameeyo manhaj mideeya waxbarashada Soomaaliya meelay joogtaba isla markaasna ay qayb ka tahay mas'uuliyadda qof walba ka saaran oo Soomaali ah arrimaha amniga. muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta isku kalsoonida iyo is-ixtiraamka. sidaas oo kale waxaa qayb muhiima ka ah oo amniga kor u qaadaya in la helo cadaalad iyo garsoor hufan oo qof walba Soomaaliya u suuro geliya inuu helo xuquuqdiisa. dal aan lahayn nidaam hufan ee cadaaladeed horumar ma gaari karo. waxay ka mid tahay waxyaabaha keenaya inay qabyaaladu mar walba
miiska saarnaato dowladnimadana ay weeqanto cadaalad darrada marka in loo tababaro dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ay jaamacadaha soo dhamaysay shahaadooyinka sarsare soo qaadatay in loo tababaro garsoorka si ay u fuliyaan garsoor cadaalada oo ummadda Soomaaliyeed ay ku diirsato insha Allah tabaaraka wa taala qodobka saddexaad waa dhaqaalaha ummad faqri ah horumar ma samayn karto dalkana wuxuu leeyahay khayraad fara badan oo Ilaahay noogu dhexmeeyay inaan ka gudbino shahaadka iyo baryaha shisheeyaha aan baryayno oo aan u soo saarno shacabka Soomaaliyeed khayraadkooda si ay uga faa'iideystaan isla markaasna aan ku soo dhaweyno cid kasta oo Soomaali ah ama ajnabi ah oo diyaar waa inay maal gashato dalka Soomaaliya sidaas oo kale in loo sameeyo sharciyo dhiirigelinaya maalgashiga dibadda dhiirigelinaya sida aan wada ognahay qofka Soomaaliga sharafkiisa waxaan ku soo celin karnaa inuu helo luqmatu cayshkiisa inuu kasbado maanta waxaan ognahay marxaladda dalka uu ku jiro dhinaca dhaqaalaha ma iyo khabiir dhaqaale laakiin waxaan adeegsan doonaa khubarada dhaqaalaha kor u qaadida dhaqaalaha waa inay la socotaa la dagaalanka musuqmaasuqa sida aan la socotiin dowladda Soomaaliya mar walba waxaa lagu eedeeyaa inay tahay dowladda ugu musuqmaasuq badan adduunka oo dhan ama run ahaato ama been ahaato mar haddii xumaan ugu sheegay xumaantuna ay jirto waxaa waajiba in laga dagaalamo shacab dhibaataysan oo duruufta Soomaaliya ku jirto kale ku jira musuqmaasuq ma qaadi karo waxay u baahan yahay wax yar oo khayraadka oo helaan in si cadaalad ah u wadaagaan isla markaasna la og yahay wax walba meesha ay mareen haddii aan waxay ga weydiisay dowladda TFG-da aniga aan hogaaminayay maxay ka qabatay musuqmaasuqa waxaan ku heli karaa jawaab kugu filan xilligaas ma jecleen inaan siyaasadeeyo la dagaalanka musuqmaasuqa laakiin dowladdeedu waxay qaaday tillaabooyin looga hortagayo arrimahaas waxaana ka mid ahaa tayeynta iyo xoojinta hay-adaha ku shaqada leh dhaqaale ururinta iyo bixinta waxaad wada ogtihiin in laga shaqaysiiyo bangiga dhexe in wasaaradda maaliyadda la gaarsiiyo heer ay leedahay fayl ay ku jiraan wixii soo gala iyo wixii baxay taasuna waxay ahaaday u dhawaansho loo dhowaanayo maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa marxaladda soo socota waxaan kor uga qaadi doonaa insha Allah tabaaraka wa tacaala heerka ay joogto hadda waxaan jecelnahay inaan ku guuleysano 4 sano markay dhamaato inaan la dhayn Soomaaliya waxay ku jirtaa dawladda ugu horeysa musuqmaasuqa inaan la dhayn ku dadaala insha Allah tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa inaan ku xajiyo qodobka afaraad oo ah dib u dhiska dalka dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalkan haddii aan loo abuurin dadka Soomaaliyeed ee shacabka dhaqaala meel ay ka helaan loo abuurin ama shaqo aan loo abuurin waxaan ahaanaynaa kuwa mar walba ka dambeeya dadka marka waxaan rabnaa in la abuuro hab kaalmaynaya dhaqaalaha inuu kor u soo kaco in kor loo qaado hay-adaha adeegga bulshada sida jidadka isbitaallada iskuullada biyaha korontada waxay ka mid yihiin waxyaabaha loo yaqaano adeegga bulshada oo maanta aad u baaba'san oo aan u baahannahay inaan xoojinno
وحنا فرصة على رنتي أنت عن جوجي دبته إن أنا المدف وراءه هي هيادو هي شركة دنينا يعني ما صوت جعل إني وحكة قبتان دقالها هي النبض وكل هذه كلام هدي عن ليلة وحيابا عن سوق شيء إنه جلد وناكسل هدان ليلة إسكتالو وهذا قبل شيء هدان ليلة كورنتو هدان ليلة بيو وناكسل أو لورس كمان كرو عبتان كيوه لمتكا وحيابها عن بدونا إن وحكنا بتوع حكمها إلا سوق اللي يدرك ورشدها يركا سكر الله بعض وحصاصار قبل شدة مرحلة الصوصة ما دام هي مرحلة مهمة وحنقول ديار قرون نسير وفي عناد وحنقول ديار برنامج كان كهلا إنه سياسة حق الوفر لها سيان رابط من وقت إسلام كاسم الله لو ضدك وفي عناد أما تبني قرارة أما السياسية وفي لها برنامج عن شيء منه سياسة رنا قانين أريد دورش اللي هو كذا كليه وعن رواينا يدنا دول استاجو بعيد الله قبائل لهلو من نبض الصومالي اللي سوعليه هي طريقة هو هبون وعيتان اللي سوعلا مريض وحدوتين وحالا مسي ما ملكم يرجعنا وبلد وحالا مسي ما ملكم يرجعنا maamulada ku meel gaarka ah jira iyo dawladda dhaxmar walba waxa dareemaysa inay muuqato kala qaybsanaan iyo kala fikir duwanaan dawladda qorshadeedu wuxuu yahay in la abuuro calaaqaad wanaagsan lala abuuro maamul goboleedyada isla markaasna dib looga fikiro habka ugu wanaagsan ee federaalka loo dhigi karo si loo xaqiijiyo maamul goboleedyadu inaysan dhaqanin kuwa noo jiida kala go iyo qaybsanaan ay dhaqdaan kuwa noo jiida midnimo iyo isku kalsooni iyo iskaashi sidaas oo kale waxaan rabaa inaan farta ku fiiqo walaalahayna reer Somaliland aad ogtiin aan bilawnay wada hadal haddana aad ogtiin in raad waxa kale yahay in hanaan cusub ee wada hadal la bilaabo marka dawladda aan ku guuleysano dib u soo dhiso walaalahayna tabashay qabaan in tabashadoodana wax laga yiraahdo lagana wada hadlo mustaqbalka waqooyi iyo koonfur in laga hadlo mustaqbalkooda waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo iyadana caafimaadku waa qayb muhiima gaar ahaan Soomaaliya waxay ku jirtaa meelaha ugu dhimashada badan ee hooyada iyo dhallaanka si arrintaas wax looga qabto waxa loo baahan yahay in la helo kaadir ama aqoon-yahan u diyaarsan in wax ka qabto isla markaasna loo helo qalabkii iyo imkaaniyaadkii ay ku soo dhigin lahayn adeegaan bulshada isbitaalada dalka ka jira mustawahoodu aad u hooseeya isla markaasna ma gaarsiisna gobolada dalka oo dhan iyo degmooyinka iyo tuulooyinka qorshaha dawladdeedu wuxuu yahay in la gaarsiiyo gobolada Soomaaliya dhammaan magaalo madaxdooda